Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaanu ka hadlaynaa yoolalka ugu muhiimsan nolosha ama qorshaha ugu fiican nolosha ee bini'aadamku qorsheeyo. Waa qorshaha ugu fiican nolosha ama ugu muhiimsan nolosha ee bini'aadamku sameeyo. Haddii aad qorshahaaga sida tan ka dhigto, run ahaantii adduunka iyo aakhiraba labadaba waad guulaysan doontaa. Waxaad noqon doontaa qof labada daaroodba u shaqaystay. Lambarka koowaad waa Alla ka cabsiga iyo inaad Alla ka cabsato oo cibaadadiisa aad la timaado. Waa qorshaha koowaad ee nolosha bini'aadamka kow u ah ama asal u ah. Lambarka labaad waa inaad guursato ama inaad qoys samayso oo aad qoys family aad noqotaan. Lambarka saddexaad waa isku dheelitirka maskaxdaada. Isku dheelitirka maskaxda waxaan ka wadaa inay maskaxdaadu inay dhinac walba u dhisan tahay oo cilmi walba ama wax walba oo bini'aadamku barto inaad wax ka taqaan ama wax aad ka fahamsan tahay. Waa inaadan hal meel u go'in oo dhihin hal meel diinta kaliya ayaan baranayaa. Diinta kaliya waad baran kartaa, laakiin maadigan baro aad ayuu ku anfacayaa. Marka isku dheelitirka maskaxda sidaas ayaa laga wadaa. Lambarka afraad, kobcinta dareenka naxariiseed. Waxaa laga wadaa inaadan ahaan weligaa qof macangaga oo adag oo aan naxariis lahayn. Haddii aadan naxariis lahayn, waa inaad qorshahaaga ku dadid inaad sidan iska beddeshid oo aad noqotid qof naxariis leh oo bini'aadamka u danqanaya. Lambarka shanaad waa xasillooni dhaqaale. Qof walba oo bini'aadana wuxuu jecel yahay inuu xasillooni dhaqaale inuu dareemo oo uu helo nolosha wax ku filan ama noloshiisa wax uu ku noolaado oo ku filan inuu helo ayuu qof walba bini'aadana jecel yahay. Marka qorshaha qof walba bini'aadana qorshihiisa waxaa ku jira inuu hanti yar ama wax yar uu ku noolaado inuu helo. Lambarka toddobaad waa adeegga iyo mas'uuliyadda bulshada. Qof walba bini'aadana wuxuu jecel yahay inuu noqdo qof mas'uul ah ama bulshada u adeega inuu noqdo ayuu jecel yahay. Marka qof walba bini'aadana qorshaha way ugu jirtaa inuu xil ama inuu dad maamulo. Marka waxaa laga maarmaan ah qof walba oo bini'aadana inuu qorshihiisa ku daro inuu mas'uuliyad inay saaran tahay, inuu dadka la nool yahay, inuu adeeg ay ka rabaan. Marka adeegga waxyaabo badan ayuu noqon karaa. Wuxuu noqon karaa dadka deegaankaaga inaad caawiso oo waxyaabo badan aad tari karto inaad tartid. Marka qorshahaaga waa inaad ku dartaa adeegga iyo mas'uuliyadda bulshadaada. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday oo nolosha bini'aadamka ama qorshaha bini'aadamka ku saabsan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar. Mahadsanid.